مدوبي وسعيد عبد الله دني وشيخ شريف وخير مدح صبور وعبد الرحمن عبد الشكور ونكي روبلي وردي اها انتو دا waxay ku mideysan xasan sheekh maxamuud iyo xamza inay ku ciyaareen dastuurka inay dalka qof iyo cod ku wadaan in xamar ee amaan ka dhigaan in ay al-shabaab la dagaalameen arrimihii dibadda inay hagaajiyeen Itoobiya inay baddi ka dhigeen dalkan imaaraat iyo qashin iyo shisheeyo dhan inay meel isaga laabeen in gacantooda waxba lagu culi waayo Itoobiya ku shaqeysan weyday masarre ku shaqeysan weyday inay noqdeen rag Soomaali u soo baxay oo dalkana maanta inta macal shidaal qoys ku fakaraya يا دستورك دليل يا سعيد عبد الله الدني دستورك بنتلان وحو كدلي كونتوني بو كدلي او اسغا تلكيس او دار الله ما انت دستورك بنتلان فري صدح العتم عارضك كدمات تضبيل عتم اسغا كدمات وانك كرسي او ku fadhiyo xildhibaanada alkuliistayaasha iyo kuwa sawiradiisa wata waaniki soo xulay xildhibaanada hadda federaalka jooga سعيد عبد الله الدني وانكي بيلها بطلان كسو بوبي كرسي او كفرديا هدا marxaantigii noolaaba joogay waa kursiga oo xaday oo boobay oo dadka reer Puntland ee maanta ku kala dhinteen way talo iyo tusaale u sahayn ninkaas noocaas oo dhan ah baa wuxuu badbaadinaya qaranka Soomaaliyeed buu badbaadinaya oo god ku dhacaya dani waa qaranka badbaadinaya Axmed Madoobe oo 13 sano aan maalin la kismaayo dhaafin ilaa goormuu dhaafay maantu raas Kamboni ciidanka qaranka uu kula dagaalamay oo al-shabaab uu sii ka haystay saaxiibadiis beesha caalamka isaga u yihi oo halka raas Kamboni oo jirta 200 kismaayo u jirta ugu tagay halka bu'aale oo 180 kilomitir waxa dhamay kismaayo u jirta 13 sano uu waligiis inuu gacanta Jubbaland ku socdiyo ku fakirin war maxay tahay war goob weyn oo kismaayo 13 kilomitir u jirta al-shabaab baa degan ninkaas oo shacabkii kismaayo go'doomiyay oo gaajada ku dilay oo kuwii odayaashii daarad iyo Soomaaliyeed u xirxiran yihiin oo kuwii la tartamay u xirxiran yahay oo waligiis saddex nin iikan aan nin kala baxay doorashadiisu taa Axmed Madoobe oo intaas oo waji leh xisbiga waji badan qaran xisbigaas ninka iska leh baa wax badbaadinaya qarannimada ummadda Soomaaliyeed oo god ku dhacaya Axmed Madoobe badbaadinaya qarannimada ummadda Soomaaliyeed شيخ شريف oo 3,000 wiil oo Soomaali ah oo ugu soo baxday muqaawimo ahaan ugu soo baxday oo u soo hiilisay inta laga qaaday diyaarad raas Kamboni dusheeda lagu duqeeyay ilaa hadda hooyinkooda ay daawanayaan wiil hooyadii meel ku ogtahay is jirin oo dhiiga wiilal Soomaaliyeed oo garab siinayay isaga isla ninkaani mabda iyo xaq buu ku taagan yahay aan meel uu ku sheegay oo raga dhiigooda gatay baa wuxuu badbaadinaya qarannimada ummadda Soomaaliyeed khayr oo markuu kursiga joogay nalama cabsin karo mooriyaan annaga banaanka taagan waxba nooma yeelin karo kuraasta waxaan ka jecelahay inaa weyno oo intuus qaaday Cabdiraxmaan Cabshuur gacan ka soo jabiyay baa wuxuu badbaadinaya qaranka Soomaaliya oo kursigiisa ilaashan waayay Roble oo ninkii magacaabay sida ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre hadda Xasan uu la shaqeeyo ولا شقيسان وايي راح بدبادينا يا قرنك umada Soomaaliyeed waa ragii saddexda u dambeysay hadda afarta u dambeysay maalooto saldhig ku yaala xamar intay weerareen yiri nin xiran baan soo deynayna baa qaranka badbaadinaya wiil kasta oo Soomaali oo muuqaalka daawanay waxaan leeyahay hadaad qoriga qaadan karin oo aadan nima kala dagaalami karin oo aadan dalka wax ka badbaadin karin oo aadan qarannimada ummadda Soomaaliyeed aad dhaxal u xiran karin maanta kadib niyo baasaboor raaso 2,000 xadaya qolo ka deen qaadataya wax uu samaysaya ilaahay meeshu ka jiro ilaahay ku dayici maaye subhanahu qaadir weeye ويرزقه من حيث لا يحتسب ما اوغن بكا ارساقيay iyo iska soo tahriib wili gabar kasta oo ay maqlaysaa iska soo sababta dalka waa qashin qub dhalay wi meeshan dal ma waxa bal inta nin aan ku sheegay ba laba nin oo si xalaal loo doortay yaa ii sheegay kara beeliina daawanaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre ay kursi ka xadeen bal adigu ii sheeg inta soo nin soo intii shalay markay tartamaysay lahaa Soomaaliya dalka qof iyo cod baan gaarsiinayna dastuurka Soomaaliya dhameystirayna kuwina lahaa Soomaaliya kuwa marka dalka lagu kala xishoon maayo adiga daawanayana dhiig ma lihido inta qoriga qaadatid nimanka iskama celin kartid حتى أفس جمع الكرت إسكت أفعله قرية قادر أركتها هذا
nimanka kuma karbaashi kartid sababtoo nimanka loo bay ku haystaan adiga oo shacabka ah bay nimankaani rabaan inay saan taageero kaaga helaan saan taageero ma kaaga heli karaan qasam bi aayaati la anigu siyaasi maahi muwaadin Soomaaliyeed waxa u adkaysan waayaba oo qurbaa jooga iska seexan kara حتى إيجان ليش ينكره ولا لوش كقاعد كره واحد دبتي بس نمك واحد يسوينا حدا ما تهلك بنا كسوي استوى قف يقعد كيديديا لا وضع شعب كسوي هذا وهو تاجر إن أنا واحد عبسيه كقبني واحد هو إن فورفيت كقاعد له عدك والحس بسمايسو دلكو أحزاب وجوري والسكو جورجورية قلبوا قاي وحكون درسنا يسا ورأيي قراء وحكون درسه ماي ملك استجوني بكل جوتايا ماي عنيا دلك وبايا بتبادل دلك بتبادل ما بعناه الله أباهن إلا جو حرية بتبادل أباهن مركز شعب كسواليد بانو لا هالضيع والله هدي دام كوا على ضيع الله من دول كرتين ما أنت كدب أدو في زودن إلهي ما كود اللي اسمها قرأ افتين دولتين ما أنت مقوم مقلا حنان يرقو الدولتين ما أنت ما مكوب بدامة يعني لا مكوب بحياة أما ورور مركز لامي سوق عايزت ما يسترى مرمر هالكاس واحد كبحياة رأ أنا بيا يلا وحلا ورور بالله مكوب بحياة دولة نيمو قرما immigration كستو أدمريسو وكويدين شري فيزا Soomaaliya أكو عاديسو إيه اللي وقرنايو إيه اللي وقول يا هاي إن Soomaaliya وكده يكرتو وردل كان والله نبيه وفعنا أبو كصعدة لكن لأن يرت Soomaaliya بالله إذا ما ذكرتها هبكينا قاتا دولتنا رشقية waxaan noocan hada guriga ugu gali kartaan oo salaanta ka calaamad kartaan salaanta ka calaamadii wallahi alla ugu dhawaanaysa qasam bi aayaati ilaah waaya xasan iyo xamzana waxaan leeyahay hadaa dadka Soomaaliyeed maanta to horumarka u wadaan adayacdaan aakhiradiinku ilaahay idin weydiinaya saa inta maanta fursad waxa la siinaysa inta maanta kursigeedu ku haysataa fursad idin siinaysa nin aan box siyaasadeed lahayn ma jirto nin aan inuu liito aysan dadku Soomaaliyeed ogaan ma jirto والله فرصة ما تيستان فرصة دينا كفائديست كل يبقى إلهي سبحانه قادر مربو فرصة دك عندك كوسو قليا مركا لو كمصو مرتو حتى تكفائديستان الرجل هانشري حتى تسكت ضيعنا أول بشرة يعني وحدة يدكم قبين سوما نورتنا كعدنا وح جارة وأنا ويعقوب سيادة أنا كوكا وملب إلا بس شرفتها ومدى الصومالية عاصمة دا صور نمدى ذي زيدي شرفتها على لسان يقرر نمدى الصومالية دي مسؤولية دي اللي دين بي أو أحكسر على شيء وعند دول استاجية سومالي الله waxay tiri waxaan laga soo duulay xamar horta halkan waxaan uga mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed halka mid ka faraya ma isla qireenaa dhulbaantay iyo warsangal inay ahayn dad dulqaad badan ma isla qireenaa oo ku sababeynaya waalida isaaqa 20 sano ee u dambeeyay waxa uu arkay weeday ma taqaana de qaran baynu nahayo xuduuday ku mashquulsaneen xuduudan soo xireenaayo nimanka markii laga adkaaday oo dhulbaanta afka ciida u daray oo 32 sano wixii ay aruurinayeen wiilal jamaahiira oo aan telefoon wadan oo macawuusyo wataan hadii hadda premium bank aad ku xaglinaysa xasan sheekh daabshiil oo umada Soomaaliyeed dhan hantidooda haya soo nin habar jeclaa la garanayo ma dabaqa u dheer bugare uu ku leeyahay halka bala soo fariisan karaa Ciise Maxamuud oo tolkayo dabaqa daabshiil bil qaysta ama hartiyo bil qaysta maadaama wixii loo kito ay ka sameeyeen isaaq meesha loo laascaanood Soomaaliya waxa la yahay marka horta culayskaas dhulbaantii iyo ka hayeen iyo warsangali alxamdulillah dhax waalidan isaaq oo wilmida arki jirin dad fiyo aad u qabteen maanta hadaba isbarta waa kuwaasay hawadii markii looga adkaaday la yiri dekada berbera kuma soo xiran karo markab aan la ogeyn maanta waxay taageen de xamar baan looga soo duulay waa meesha kaliya lacagaysa shaqaysan ka qaataan waa meesha kaliya baasaboorkeeda Soomaaliya iyo Hargeysa ku samaystaan waa meesha kaliya reerka degan oo hawiye uu sawiliga isaaq ku duulin waa meesha kaliya oo ay ka shaqaystaan markay yimaadaan waa meesha kaliya oo sidii Landheeriya xataa calanka Soomaaliland ay ku wataan way magaalada Muqdisho ee maanta leeyahay ana laga soo duulay horta xamar baa anaga looga soo duulay wallahi ariga waa soo la calaadiyo qaalay soo caalam kale ba jiraba ka qarsoonba caalam kale oo markaas waxa uu qiraa marka aniga tolka dhulbaantay warsangali inay culays badan ay Soomaali ka hayeen inama kan shir isku boojin jireen waxa soo celin xuduudaha soo xireenaayo qarannimada wada qaranka Soomaaliland waxba isku darsanay de Ingiriiski iyo Talyaani warani Ingiriis ma gumaysan dhulkan ana hartiya iska khayr Allah ku siiyo illa markii dama iska celiyo cagaa wax ka dayay marka riyadu wuu laqay Ingiriiska riyadiisa wuu laqay
هذا محو حارنا يا مرك إنه رول كويشة سياسة الصومالية ترى وكان مرك حوجا صاحب هذا عساق حوجا وكسر وين يعني إن الصوماليين وار يعني والده يا إلى أركته لما كان أسويد بيه دنك كلنا شركة لواليينه دساسي هو عليه حكومة حمر بين الجيش والدولة حمر تابع سبارك استعماش معها dadka xamar ku nool boqolkiiba 70 waa cisaaqoy oo shaqo tagaan waa ku raaxaystaan calamadooda ku wataan cid wax tiraada ma jirto illa hadasha xataa shabaabku waa iyaga nimanka madaxda ah oo al-shabaabka waa cisaaq marka naftaada beenu sheegaysay iyo aga dhigo imaaraadkan ayuu ku waalin haddaad ugu roon tahay oo golow maamulkaaga waqooyi galbeed Soomaaliya madaxweynaha Xashim Maxamuud Nacde waxaan dul istaagayaa هذا ماشي معدنت اللي يقضي وبوريه على مسكادوي ماشي هذا كشكته قفا يعقوب يرتاحوا كما شيء يكره حتى ما سوق هذا كره دتكو دوا كبقان دتكو دوا كبقان سببته ملاح ودتكو كعبسين دغال ارك حسان كجرا هذا رنت شيء ارك حساته ورا لو نين كانوا محكمه soo saarin la wareysan dani baa dilay dadka reer Puntland markay og yihiin dani wuxuu qarinayo laakiin waxay rabaan dadka reer Puntland dani inay isdhaafiyaan oo xamar isku dhaafiyaan ساس dadka reer Puntland ku fakarayaan ninkan waas dhaafinayna xamar markii ilaahay baan nacay weegiin daniinu daacish yahay weegiin imaaraadka la shaqeeyo hadda meesha macdanta laga qoday toga baalada dusheeda waa toga la xayisiinay oo laha nimankii waxa laga saaray turmasana laga saaray toga jecel baa laga saaray baalada la suugay baalada lagu sheegay ma taqaana boosaaso oo dhow wuxuu jira 7 kilomitir waxaan dhamayn kala jeexda meel la dhaho oo kantaroolka boosaaso loo maro oo wadana aado biyo kulule wadana dhankaas ay badda aado waa loo dabaal tagi jir qof ka soo reebosada 2004 2002 baan ka hadlaya x-ray bosaaso waa yaqaanaan oo daacish hadda lagu sheegay waa laga qodaya macdanteeni kuwii nalaha waa daacish baa qodanaya imaaraadkana waa ilaalinaya ano korjoogta ka yihiin ciidamada Puntland kulli waraysta waxa amar lagu siiyay inay safiirin karin hatta kuwa ilaalinaya waxa amar lagu siiyay dushan bay ka ilaalinayaan meesha wax ka socda inaad eegi karin meeshaas لميساميو لكن يعقوب حبك ما قرصونا أو جراتكو سردون بدن بولي أنا وحي سردون كي يوسف قد بيا أنا دعك هنقطة وحق سردون برشة الصومالي ولا وداعية وحقر الماي وصوبت الدولة فدرالك ما غجر برئيس وزراء حمزة عبد البر كبتلهم بوجادي ما غجر بحس الشيخ محمود بوجادي ما غجر أفريكان كوم لو قراد إن لقى عاوي ودقينته عرك duqeynta cirka loo ogolaaday laba saddex jeer waxa lagu dilay laba reerood cali saleebana iyo reer dashisha waa lagu duqeey marna suldaa caaqilkii warsangali baa lagu duqeey oo duqeynta xataa si kale u isticmaaleen nalama hadli karo saldhigaan annaga dagaal daacish baan ku jirnaa saldhigaan boosaaso ku yaala sahaydan noo marta waxay sahay ku marta male daacish iyo imaaraadku waa wada socdaa qof reer Puntland aan ogeyn male ciidamada Puntland baa og shacabka Puntland baa og qof kasta og halkii kunka wiil laga dhamaatay waa maanta macdan laga qodanay xalay waxa soo degay ciidamadii Puntland ugu faraha badnaa ee buuraha saarnaa marka laga reebo guuta labaad oo taliyahoodii Allah u naxariistay qalyare uu dhintay baa goobtii ku haray bas raggaas oolba dagaalku dhab buu ka ahaa taliyahoodii baa ku dhintay iyagu dan uma shaqeeyaan shacabka Puntland baa u shaqeeyaan waxay dhaanoo ka degan min dhaxan baa tiri ilaahu wadnuhu nistaago ciidanka waxay ka cabanayaan ma arkaysay ciidamada Puntland isku cunaya caana boora iyo sokor isku cunaya ciidanka Puntland bilaabiye lugeynaya dhaxanta dhacaysa ilaahay xaq lagu caabudaan ku dhaartay hatta hadii 5 busto lagu saaro iska dhaafnin qori aka awatay inaad xamili karin cid bustayaal u geynaysa male cid casho fareesh u geynaysa male cid caafimaadkooda ka war haysa male mishaar ma qaataan hantidooduna waa kaas asaasa daacish imaarad u guranaya ninka meesha joogana shacabka Puntland iyo ciidamada Puntland iyo xaqooda wixii doorashan ku aadayay ciidanka marka waxay la qateen oo la gaajisay si uu Saciid Cabdullaahi Dini uu guuleysto Saciid Talbuleeya oo Xashim Maxamuud lahayn Xashim Maxamuud tol uu salahayn bu Saciid Cabdullaahi Dini leeyahay tol wax kasta ku garab taagan buu leeyahay ciidamada xalay soo degeen tuurmasaale joogan macal dhaqaatiirtoodii way wataan waxay ka cabanayaan kaliya dagaalkan aan dhamaanayn oo mashruuc ah oo hantidooda lagu guranayo oo macdantooda lagu guranayo oo qoyskan ilmadanina dhaawac dhaqaale ka sameeyaan ciidanka raashinkooda ki saxda ma keenaan mid dhacay bay keenaan rasaasta waa qabiyaaladeynayaan wiilal isaga jifidiisa bahdul baanta abu taliski iyo meel kastana iyo ilaa iyo saadkii ciidankana saa ugu tax
raggaa marka soo degay dulmi bay tabanayaan ciddii wax ka qaban lahayd culimadii puntland waa la dhegeysan waaye siyaasiyiintii waa la dhegeysan waaye ilaah rabbi xamaa wax maanta la dhegeysto reer puntland ah oo mulaax dhegeysto yacquub siyaad baa jira wuxuu mulaax dhegeysto yacquub siyaad baa jira isagana wuxuu ka baryaa habeen kasta in yacquub ilaahay usoo gacan geliyo oo aan ka yeelo inaan heshiino aniga dani waana adeerkay waana saaxiibkay waa ninkii anoo dowladdiisa la shaqeynaya aan barxadda u taagnaa islaankayga iyo suldaankayga ma been baa eraygaa ka sheeg eraygaa been miyaa ka sheeg سيد عبد الله يدري من كاسا ما أنت أنا أقول إذا لهر إيمان كرا توجع سعيد باقيل له نوع كسده في سعيد أنت لا صعد تقيل مرة أنت لا صعدته بري بنتلان وحكي لمركه كذا عن أنا وركي من السوية أنت السوية لكن أنا سعيد ما أنت ولا شيء كرا وحرمك قاضن كرا إذا كان بيني دي شيء كرا وأصداد راعين كرا وعندي كرا بنتلان بالقصة دولي بنتلان بالصوّر الري سعيد انت خيالي جالس يسوي حقيقي وأوجيه إنه صحبة قبلين صومالي يوسعون وسنهلين ذكر يبوتها حروب كل تشوك جهوريري دقالك على جماعة اللي كنا داعش بات دولة فدرال كمان كستو يسلق كهذا شو حلق بنيان بحث قرنيا مع أنت داعش تقولون سيمارات تقولون ورمح بيستي داعش إلى قبتي يا شيء ملك شيء حبيستي هل يلا بيصدق على كتشوك تاومني وحي إنه من قرأ وين لقبني ما أنت كل باسبورة على سي دولار كده يدبونه قارنا ماشي مع أنت لا يقرأي بتشوجان داعش تلفظ كده ماشي مع أنت لا يقرأيه وماشي اللي يقول شيء داعش إمارات والسعودية أنا كل بقرني مع أنت اللي بتوع إذا كنا الله ما أقرأ إنه يدهان ورمحي إن ما كان على الله قرني برنامج كان برنامج شيء كل مدونه السلام عليكم ورحمة الله تعالى